Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's again Mahalin Ahmed Saad, senior teacher, Future Primary School. It's a new day. I'm going to try and present lesson 4, 5, 6, and 7. So for KG2 English. So I hope everybody is fine and well. waxaan u malaynayaa qof kasta inuu caafimaad qabaa oo guriga jooga koleyba kolka guriga la joogona waa in wax la qabtaa ma aha guriga uu iska joog coronavirus inuu laga cararaya guriga joog laguma oran farxasha badiya gurigana kolka joogtaan waa inaad activity waxun baa la qabtaa. So you have to do something at least, okay? English yara yani kula hadlay ba way fahmaysan ciyaalkayga markasta waxay oran jirteen teacher may I go out hadda waxaan leeyahay nobody should go out, stay at home, okay, and be safe. Why? Lesson 4 waan bilaabayna toos. Lesson 4 wa my name macnihiisa waa magacayga ayaan halka ka hadlaya. So kolku qofku ku weydiiyo what is your name maxaad ka jawaabaysaa my name is Mr. Saad. waxaan idhi af Saad af Ingiriis ayaan ku qoray Saad. haddana waxaan oranayaa I am a teacher. anigu macallin baan ahay laakiin adigu macallin ma tihi arday baa tahay waxaad oranaysaa I am a pupil. I am a pupil. Pupil waa ardayga dugsiga hoose primary-ga ayaa la yiraahdaa pupil. laakiin kuwa laga bilaabo secondary-ga jaamacadda heerka sare waa student. Student ma tihiin waxaad tihiin pupil. haddana waxaad oran karaysaa I am a girl. anigu inan baan ahay ama waxaad oran karaysaa I am a boy. haddana haddii la weydiiyo how old are you? How old are you? imise jir baa tahay waxaad oranaysaa I am 45 years old. aniga 45 adiga 45 ma tihi idinka waxaad tihiin malaha 6 jir 7 jir iyo 8 jir inta ugu badan ayaa tihiin. kolka waxaad oranaysaa I am 7 years old. anigu waxaan ahay 7 jir. haddana kolku qofku ku weydiiyo what do you like to eat? maxaad jeceshahay inaad cunti? waxaad oranaysaa I like to eat chips. chips waad garanaysaa. hadduu qofkuna ku weydiiyo what do you like to drink? maxaad oranaysaa I like to drink mango juice. ma oran karaysi mango. haddaad tiraahdi mango wuxuu noqonayaa mango cambelaf sidiisa waa fruit. laakiin kolka la soo shiido ayuu noqonayaa muxuu noqonayaa mango ayuu juice noqonayaa. waxaa jira pineapple juice, mango juice, pawpaw juice, orange juice. waa inaad juice-ka ku dartaa. laakiin haddaad tiraahdi mango cambelaf sidiisa ayaa lagu keenayaa. waa inaad iska ilaalisaa. lesson 5 waxa weeye numbers in words. Numbers in words. Numbers waa nambaradaas 0 laga soo bilaabo ilaa intaad ka raysi 1 million 7 9 10 5 6 0 waxaas oo dhan waa numbers. Words kuna iyaga oo erayo. tusaale waxaa lagu siiyey 0 or number. 0 wa number. Don't forget. I love it. 0 inuu number yahay. hadduu 10 kan hadduu 0 anu lagu darin the 10 ma noqonayo. the 1 unbu noqonaya. ma garatay? haddii labada dhinacba haddii la dhigo 0 gan haddii halka dhigo macna buu keenaya 0.1 buu noqonaya. xagga dhinaciisa kale haddii la geeyo la dhigona wuxuu noqonayaa 10. haddii 0 kale lagu daro 100 buu noqonayaa. qiimihiisa ayuu isbedbedelaya. kolka 0 waa number 0 oo word sidaas lagu qoraa. 1 waa number 1 oo qoraal. 2 oo number 2 oo qoraal. 3 oo number 3 oo qoraal. 4 oo number 4 qoraal. ilaa dhamaystirkiisa 10 oo number 10. intaasa kolka class 1 ka iyo 2 ga 3 gaas ayaa
kordhinaya ilaa 11 12 13 20 ilaa meelahaas ayaad la gaarsiinaya. Lesson 6 waxa weeye using a and an. sida loo isticmaalo eregaas waa erey xaraf qura anna waa erey qaabkan u isticmaalo ereyaashan iyo ankaas ayaa halkan idin baraya. kolka halkan waxaan idhi we put anaga yani dhammaanteen dadka af ingiriiska ku hadla iyo isticmaala we put an waxa lagu dara an on the words ereyaasha beginning oo ku bilaabo with a e I o iyo u. waxaan waa vowels ereyaashan waa vowelyaashan ayaa ereyaasha oo dhan ku bilaabo a e I o iyo u ayaa an. tusaale oga onion waa basal wuxuu ku bilaabay eg horta macnihiisa waa tusaale. onion waa basal muxuu ku bilaabay xaraf o buu ku bilaabay oo shantan xaraf ayuu ku jira kolka an baad oranaysaa. elephant e buu ku bilaabay waa ka kolka an baad oranaysaa. an waa tilmaam shay qura, don't forget an waa tilmaam shay qura. iyo ankaas oo dhan labadan erey waa tilmaam shay qura. haddana eggna waxa weeye waa beed isna e buu ku bilaabay ilaa I insect oo kale I buu ku bilaabay orange oo kale oo buu ku bilaabay. waxaad oranaysaa an orange laakiin waa kolku mid yahay. kolku jamac noqdo an iyo eegaas way ka baxayaan waxyaalo kale ayaa lagu daraysaa. waxaad oran karaysaa I need 2 oranges. orangekaasna s baad ku daraysaa waan soo dhigan doonaa oo soo socda casharkaas. eegaasna uu ka baxaya sam baad ku oran karaysaa mise tiradii aad doonaysay hadduu 2 yahay 3 yahay 4 yahay 1 yahay I need 1000 oranges. haddana waxaanu gelaynaa qaybtii labaad using maxaa la yidhahdaa a. we put a to all the words beginning ereyaasha oo dhan. beginning macnihiisa uu ku bilaabo with other letters waa maxay sida c-ga sida b-ga sida p-ga iyo kolka laga reebo shantan xaraf a b c d-ga waxaa soo haraya 21 xarfo. 21 ka xarfo oo dhan laakiin isagoo single ah ayaa la isticmaalaa maxaa la yidhahdaa a sida a pencil, a cat, a book, a chair, a table, a door, a girl, a boy, a car, a house. waxaasoo dhan. lesson 7 waa colors waa midabyaasha. inaan halka idin dhigo kalaryaasha ayaa laga doonaya laakiin nasiib xumo waxaas intaas oo kalar ma hayno laakiin waan idin sheegay af Soomaali ahaan red waa casaan. colors waa midabyo s baa lagu daray waa jamac. haddii midab keliya uu noqdo staas laga reebaya color red colors. laakiin hadda intaas sagaalka red waa casaan, green waa akhtar, yellow waa huruud, black waa madow, orange waa limi, white waa cadaan, blue waa blue baad garanaysaa, brown waa buni, purple waa sooseri. intaas ayaa casharkeena maanta. casharkaala waxaan ka soo bilaabnay lesson 4 ilaa lesson 7 waxoogaa ayaa inoo harsaan. biidnillah waan dhammayn doonaa insha allah. kolka fariintaydii waxa weeye gurigii la jooga wax uun samaysta akhriska badiya qur-aanka badiya banaankana aad iska ilaaliya. kolka guriga kusoo noqotaan then wash your hand thoroughly. si fiican saabuun ku mayra. stay at home, be safe. Assalamu alaikum. Bye bye everyone.